Soomaaliya sanadii ugu horreeyay waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa enrollment rate-kooda aad u sarreeyay laakiin burburka wuxuu keenay wax dhan ku dhacaan eber noqdaan baaba'aan macallimiintii ay kala tagaan qaar dhintaan qaar cararaan wixii wax lagu baran lahaa iskuuladii ay burburaan runtii dhib badan culusaa soo gaaray bedelku weyn waxay dhiirigeliyeen bulshada waxay dhiseen iskuulkan quruxda badan leh qofka iskuulkan arko iskuulkan waa lacag laan qofka iskuulkan arko wuxuu uudkiisa dosan dhaqaaleysiinin wuxuu isku daynaa uudka marka bulshada waxay noqonaysaa bulsho wax baratay oo dhiirigelsan markii ugu horeysay oo fasalladii la dayactirayay 80 arday baa joogtay 80 arday ayaa joogtay oo gabdhaha wiilalba leh maantana 975 arday baa guud ahaan joogta sanadkan bacda ugu gudbi doono foonka ama dugsiga sare waan lacag la'aan ku soo baranay intaas maxaan sugayaa ilaa iyo heerkayga in aan ka faa'iidi doono lacag la'aanta ama waxaan ku soo baranay iskuulkan waxbarashadiisu aad bay hadda u wanaagsan tahay fasallada maadooyinka iyo macallimiinta aad baa loo wanaajiyay ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu nahay dad awal mugdi ku dhex jiray haddana iftiin u soo baxay oo kale waxaa ka dhigi jiray iskoolka teendhada ilaa inta waxaana hadda fasalka 8aad waxaan hadda maad celinayaa hay'adda NRC oo maanta noo qaybisay buugaag annagoo wax haysan iyo dhar waxaan kaloo mahadnaqaynaa iskoolka inuu lacag la'aan yahay